gabadha raali geliya gabadha uun dhagan dhuglaada ilaahay baaba quwadaadi tusoo ay ku jeclaysiiyee la qaybso jacaylka ayaan ragga leeyahay gabdhahana waxaan leeyahay ragga hal raali geliyo markuu soo galo waxaad tidhaahdaa in حبيبي معانا محن كو قبطة عجها قبا مضحك قبا رالي قلي كل وعن داوديال كسر واده ورئيس سيجارة أو أي مرتين وقت هاي نحاول على كار أو طبعا قف أنت بدن كفالوتا أرمها قيسك أهنا لتليه أنت بدن لتلسا قيسسك يدليرة دا دونيا إني قيس دستان waxaan ka wareysan doonaa bal qoyska wanaagsan iyo sidee qoys wanaagsan loo dhisaa waa tahay xaawi mar kale waan ku soo dhaweynayaa bal marka u horeysa sidee qoys wanaagsan loo dhisaa baa isleedahay maasha allah waa dhawahay qoys wanaagsan waxaa loo dhisaa qoys wanaagsan waxaa lagu dhisaa diinta islaamka iyo maxaan kuu sheegayay inuu ku salaysan yahay dad iimaan leh oo ilaahay garanaya oo isu run sheegaya ayaa qoys wanaagsan dhisi kara oo aan ikhyaali iyo been ku noolayn marka saasaa loo dhisaa qoys wanaagsan awal waxaa laga rabaa inay marka hore run isu sheegaan kuna saleeyaan waxa ay dhisayaan usan khiyaali ahayn ee uu yahay beyd ilaahay inay dhisayaan oo soo saarayaan maaragtay awlaad soo saarayaan oo ay wax ku soo kordhinayaan diinta islaamka iyo muxuu ahaa iyo bilaadanka oo ku salaysan yahay run ahaan labada qofba inay ka go'an tahay oo ku salaysan yahay waxa ay dhisayaan inuu yahay beyd ilaahay marka isfahan waaga yimaada marka ay labada qof ay guri wada degaan sidee lagu xalin karaa maxaa u sababeynaysa horta dadka islaamka ah ee marka hore ku saleeya guri hagaagsan inay dhistaan inay guri islaama dhistaan oo run isu sheegaya gurigooda ma burburo qolada gurigooda burburo waa qolada ikhyaaliga ku nool marka hore baan ka wada hadlin si dhaba maxaa inoo ah oo aynu wax ku dhisanaynaa maxaa noloshu tahay run la isu sheegin nolol ikhyaaliyo beenbeena ayaa inta badan muxuu ahaaye ku jirta marka halkaa waxaan leeyahay marka hore ayaan si dhaba xoogaa isxiisaynayo isjacayl iyo waxaan aad rasmi badan u ahayn ayaa qolyaha sembari gurigooda burburaa lagu dhisaa kuwa sida dhabta ah u dhisa guriga inta badan ma burburaan ismana qabtaan hadday isqabtaanna wixii qofka shaygii kasoo bixi waayo qofka kale wuxuu ama uu ka tanaasulaa ama intuu la garnaqsado ayay dib u soo noqotaa qoysaska burburaa waxay ku salaysan yihiin marka horeba ikhyaali iyo been iyo waxaan jirin in lagu dhiso oo labada qof baa ay ka timaado riwaayad ama aan la isweydiin sida dhabta xagee loo socdaa sidee baynu muxuu ahaa mustaqbalkeenu muxuu noqonayaa maxaan haysanaa maxay hadday timaado aynu taa kaga gudbaynaa marka horeba si dhaba ayaan la isu baran oo aan la isu bislayn oo maxaan kuu sheegaa nolol run aan la wadaagin marka horeba waxaan u sababeynayaa beenta sida badan rag waxay yiraahdaan naag beena waa lagu dhisaa runna waa lagu soo xarageliyay haddaabad been keentay oo aad tiri marka hore maraakiib baan watay diyaaradaha halka ka boodayay aadan haynoo bariiskaba aadan heli karin marka runtii timaadana dee waa la iskaga hor imaanaya marka inta badan been baa ku jirta meesha waxbaa ku buraa beenta miyaan laga hortagi karin oo dhalinyaradu sidee uga hortagi kartaa bal maadaama ay qoys dhisanayaan hablaha ayaa waxaa laga rabaa ruuxoodu way dhici jirtay wayna timaadaa laakiin runtu markay timaado waxaa la rabaa gabadhu inay tanaasusho inay wixii loo sheegay markay wada heli weydo ay dul qaadato oo raadiso wixii wax ka bedelan ay samayso oo maaragtay meeshii beentii ka saarto oo ay samayso tanaasul fara badan oo iyadu qoyskan ay dhistay inay burburiso ay ka ilaaliso taa hablaha laga rabaa laakiin inta badan raggu khiyaamada way ku jiraan meeshan waxa weeye guri baa dhismay reer islaama la dhisay wax badan oo la isu sheegay waxbaa been ka noqonaya laakiin lama rabo in la yiraahdo wixii ya waan rabaa laakiin waxay suurtagal oo gurigani ku dhismayo gabadha la rabaa inay dul qaadato dhalinyaradana waxa ragga ninkana waxa laga rabaa ninka ragga inuu dul qaato beentii haduu beenba sheegay uu yiraahdo runtii maanta aynu joognaaye halka ma muxuu ahaaye miskala jaan qaadnaayo reerkeena ma dhisana inantana tanaasul badan baa laga rabaa wixii ma wada suurtoobayaan haduu yiri dahab baan ku iibinayaa haduu yiri maxaan ku sheegay gaadhaan iibinayaa haduu yiri halkan ka cadeynaya runtu xaqiiqda waxay iimaanaysaa moogda reerku markuu dhismo marka horeba meeshaas waxa ku jira isbislayn la'aan iyo maaragtay hubitin la'aan waxa la wada sheegay run ma wada noqdaan wiilasha iyaga ahaan maxaad fariin u diraysaa maadaama iyagu inta badan xilliga haasaa waa intaan guri la dhisin marka guri la dhisana waxaa la dhahaa gabadha inta badan dambiga yeelata inta hore ee la sheekaysanayona wiilka inta badan dambiga yeesho oo gabadhii inuu been u sheego iyo waxyaabaha marka wiilasha iyaga maxaad fariin u diraysaa marka ay ku haminayaan inay qoys dhisayaan waxaan fariin u dirayaa wiilashu iyo gabdhahaba wiilashu awalu ninka ayaa horta mas'uula isaga xilku saaran yahay isaga laga rabaa maxaan ku sheegay wax badan oo akhriya adduunkaba ah fariintaan u dirayaa hablaha inaan been loo sheegin
hadduu yidhahdo anu shaarkaayo macawustaa kaliyaan gashanahay maxaan kuu sheegaa wixii ilaahayna siiyana waa alxamdulilah walow kaana joodarina allaha ka dhige waa inuu ka hadlaa xaqiiqda dhabta uu ku salaysan yahay waa inuusan odhan diyaaradaan kiciyaa maraakiib baa ii xidhan xaggan aan u shaqeeyaa horta marka horeba waa inuu ku saleeyaa noloshiisa waa inuu run ku saleeyaa haddii runi timaado ay gabadhu runtaa ku qaadato inta badan burbur ma yimaado waxaa runta ku dhaqmaa runta ayay ku waaraan ku dhismaan ku joogaan ku nagaadaan mar walba sheekooyinka burburka waxaa ku jira been baa ku jirta marka wiilasha waxaan leeyahay beenta hala joojiyo ha lagu saleeyo guri marka la dhisayo wax weyn weeye maaha wax hawl yar maaha wax fudud maaha wax ciyaar lagu dumin karo cada ilaahay baa ka dhacda waxaa weeye runta ha lagu saleeyo naynada shaarka surwaalka aan gashanahay iyo maxaan kuu sheegaa $50 aan ka qaato wasaaraddaasaan ku shaqaynayaa ama xoog maal baan dhabarkaygaan muxuu ahaa kuu soo xamaalaya maalintii haddaan $5 kuu soo hele jacaylka taama ku abuurnaayo waxa weeye guri ma ku dhisanaa hadda xaq sidaa taama igu rabtaa qofku xoolo ma doonin qof buu doonayo xooluhuna way sameeyaan qofka sameeya marka labadoodu markay run isu sheegaan ilaahay baa barakaynayo $5 baa ilaahay wuxuu ka dhigayaa marka run lagu saleeyo muxuu ahaa nolol wanaagsan iyo maaragtay waqti waara marka arrinta runta lagu saleeyaan leeyahay waayahay labada qof ee guriga wada dhistay wiilka iyo gabadhaba maxay tahay mas-uuliyadda midba kan kale ka saaran maxaa si looga baahan yahay si wada jira labadoodaba waxaa ka saaran waxay tahay waxaa ka saaran horta in la isqadariyo koow in la isxushmeeyo in qofka kale qadariyo in waliba qofka kale muxuu ahaayey dadkiisa ka soo jeeda uu qiimihiisa arko in labada qof ay yihiin laba qof oo maxaan kuu sheegaaye isqadariya oo issharfa oo ismaqla oo is-intiraama oo isu dulqaata waa bilaadan waa la khaldamayaa waa la cadhoonayaa laakiin waa in lagu qancin karaa war maxaa shalay qofkii hebelaa waa kugu gafay waa in bolojiis la bixin karaa waa inuu qofka kale odhan karaa hebel raalliho waan kaa gardarnaa ama waan kaa khaldanaa ama bilaadan baan nahay oo dee waxaa weeye shaydaan baa iga tan bidiyey waa in la isqanciyaa oo la isqadariyaa oo iyagu ay hoostooda ka xallidhaan waalidiinta labada gees ka soo jeeda iyo maxaan kuu sheegaa gacalka labada gees ka soo jeedana waa in mid loo wada ahaada oo qofkiisa kale sida hooyadii walaashii u jecel yahay hooyadii aabii u jecel yahay hooyadii walaalkii u jecel yahay dadka isku mid ay noqdaan laakiin haddii qolana la buriyo qolana la jeclaado halkaa burburna wuu ka yimaadaa maogtay faamilada labada gees ka soo kala jeeda marka waxaan leeyahay ha la isqadariyo ha la isxushmeeyo ha la isu dulqaato waayahay dumarka Soomaaliyeed inta badan waxay ku andacoodaan ama inta badan dhahaan ragga Soomaaliyeed waa rag adag oo wax badan lagama kasban karo oo bal taas maxaa u sababeynaysaa gabadhaas maxaa looga baahan yahay taani waxaan leeyahay ma jirto raggu ma adka laakiin gabdhaha adkeeya gabdhuhu waxayna fahansanayeen ninku wuxuu ku jilicsanaan lahaa iyo wuxuu ugu soo dhawaan lahaa iyo wuxuu ku godlan lahaa hablaha Soomaaliyeed ma yaqaanaan raggu waa rag nugul waa rag waxa weeye intiraamaha haweenkooda haddii la helo qodobka maxaan kuu sheega ay habluhu fahmaan waxa weeye raggu way ka nugul yihiin hablaha marka gabdhihi baa waxaa ka maqan kasbashadii qoyska oo gabadhii baa waxay soo haysataaba maaragtay iyada ruuxeedu waxay samaynaysaa jim wax adag oo aan dee soo jiidashaba lahayno sida ay ninkeeda ku raali gelin lahaydba way ku yartay waxay moodaysaa inay duleed noqonayso hadday tidhaahdo iyadu isjiciso marka waxaan leeyahay raggu ma adka raggu innaga adkaynayna idinka adkaynaya waliba jiinalkiina dambe yaryari waxaa weeye waxa si adag oo qabaluusa baad ragga ugu taagantihiin ka daaya halkaa ka daaya dhanka kale ka mara saasaan leeyahay marka waxaad leedahay gabdhuhu iyagaaba adayga bilaabay intaanay raggu ay Soomaaliyeed aysan adadkeyn waayahay xaawa waa mahadsan tahay weli arrimihii qoyska ayaan ku guda jirnaayo maadaama aan kaa wareysanaynay qoyska wanaagsan bal waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo gabdhaha hadda raba inay qoys dhistaan oo hadda ku haminaya laakiin aan weli guursan maxay tahay talada aad siinayso gabdhahan hadda guursan taladaan siinayaa waxay tahay gabadhii u baahan horta consulti in lala taliyo oo xaqiiqda wax ka dhiman yahay waxaan ugu baaqaynaa inaanu si freeya ula talinayno ta kale oo aan hawada u marinayaana waxay tahay gabadha horta muslimadda ee guriga dhisaysaa gabadha muslimadda ahi waxay ku janno tagaysaa waa ninka sababtee bay ugu janno tagaysaa marka habluhu way diidaan arrimaha maaragtay runtii diinta ku salaysan in loo sheego xaqiiqiyanna maaha inay diidaan gabadha waxaa la yidhi jannada ninkeeda u haya sababta ugu haya waxaa weeye intiraam inay dhegaysato inay maqasho inay maxaan ka tala qaadato inay u raariciso dhegaheeda inay isaga raali geliso haddii lagu yidhi jannaa baad ku gelaysaa waayaad cadaab ugu ordaysaa adigu oo lagu sheegay haddaad ninkaaga khilaafto cadaab baad ku dhacaysaa ma dhanka wanaagsan ee jannada adigu muxuu ahaa ee aakhiradaada u turatido adduun iyo aakhira badane wanaaga aadaadid marka gabdhaha waxaan leeyahay kulligiin ehlu janno noqda raaliyooyin noqda haddaad raaliyo noqoto wax badan baa kugu qabsoomaya
oo ragga adeecdaan ninkaaga haddaad adeecdo fiiriya aabaha waad ka timi hooyadaa waad ka timi gurigiina waad ka timi nolosha nin baad la qaybsatay jannaad ku gashay caafimaad baad ku gashay hubaad ku gashay karaamaad ku gashay sharaf baad ku gashay intaasoo darajo ilaahay kaa siiyey ninka agtiisii awlaad buu kaa siiyey irsaaqad buu kaa siiyey noloshaadii caafimaadkaagii buu kafaalo qaatay raaxadaadii buu kafaalo qaatay wuxuu kugu daray ilaahay janno waay sababaad muxuu ahaaye u samaynaysaa inaad markaa intaad dardhaafto isku taagto isagoo kulloo shaqo ka yimi su'aal qabri keento tiri xagaad ka timi xagaad u socotay iyo maxaad samaynaysaa iyo yeeli maayo iyo jaja inaad su'aalaha bilowdo soo kama qurux badna inaad habsiiso ka hor tagto raali geliso biyo qabow cagaha u geliso madaxa ka dhunkanto isaga aad raali geliso soo kama qurux badna saad janno dalaq u tiraahdo subaxa bal ka sheekay adigu arrinkaa soo arrin aad qurux badan ma marka arrintaa waxaan leeyahay wadada jannada mara hablo wadada jannada mara adduunka waxa weeye waa laga tegayaa ninka caafimaadkii kuu haya oo cunadii kuu haya oo gogashii kuu haya oo raaxadii kuu haya oo awlaadii kuu haya maxaad ku bedeli kartaa inaad isaga marka taqliid isugu taagto aqalka intaad ku jirto adiga naftaadu ka fikirayo waxa weeye ama xabad ha u kaco ama dhagax soo xamaalo ama meel kale ha aado cidda uu maqan yahay waa adiga oo kaliya waayaan markaa ku dooranaysaa muxuu ahaa inaad meel kale aado saygina adeeco waxaad noqotaan ehlu janno aqladooda ku jira isagaa laga rabaa kafaal qaad haddaan duruufi ku kaliifin oo ninkan ama cudur kaaga dhicin ama uusan kaaga dhicin maaragtay shaqo la'aan ama aan dee duruufi ku saarin inaad noqoto boqorad guriga ku jirta oo loo shaqeeyo cagaha loo maydho timaha loo shanleeyo la raali geliyo gabdhaha maxaa ku diidaysaa ilaa intaaba isagaa ku khasban oo aad bartaan inuu adiga kugu mashquulo sababtaad ku diinaysaan maxaa la yidhahdaa ood bannaan ugu hordaysaan oo leedahay xagaad ka timi xagaad u socotay yaad guursad tan guurkan hadda ilaahay baa u baneeyay haddaad adigu sii dayso baahidiisii kafayn weydo dee hadduu kaa talaabsado gabadh kale keeno kaa fiican dee waxa iska daba jiitan haayeen ha odhanin muxuu ahaaye laadaa sii daayey oo baahidiisii bannaanka u saaray marka arrinta guurka laftirkeeda ninku inuu xaasas kale u guursado maxaa u sababa baa la dhihi karaa ma gabadha u sababa mise laba masala u sababa awaalu gabadha u sababa hadday ninkani baahi badan buu leeyahay baahida raggana waxa weeye ninku hadduu baahidiisa helo meel ma aado baahida uu u baahan yahay hadduu ninku gabadha ka helo inta badan haddii aan markaa waxaa jirta mar raggu ay awlaad raadiyaan oo maaragtay gabadhu waxaa laga yaabaa intay muddo dheer uu qabay oo raali geliyey uu is yidhaahdo dee maxaan kuu sheegaa awlaad doono taa guurku wuu sababaa laakiin inta badan gabdhaha yaryar ee laga tallaabsaday iyadoo marcurada ama laba dhala iyadaa u sababa waxaad arkaysaa naag labada oo dhashay oo lala guursaday iyadaa sababta iskale waayo baahidii ninkay garan weydo su'aal qabri bay halka la soo fadhiisatay hadda ragga uma baahna wuxuu u baahan yahay ninku maaragtay meel ku nasto la raali geliyo siyaabii badnaayaan kaaga soo sheekeeyo dhan buu ninku u baahan yahay markasta baahi joogtaa baa ninku leeyahay haddaan markasta baahidiisa joogtadaa ku raali geliso oo markasta uu yimaado aad noloshiisa kasbato ma kaaga baxayo muxuu ahaa dee wixii ilaahay qadaray waa meesheedu haddii reere kale u qoran yihiin dee qadar rabbi way ku imaan kartaa laakiin gabadha wanaagsan si kastoo loola guursado ninku kama tago ilaahay baa babaneeyey horta marka hore ilaahay rumee ninkan baahida afarta naagood de ilaahay baa u baneeyey wixii ilaahay baneeyey adigu hadiidin laakiin saad u tartami lahayd oo adigu u kasban lahayd uusan kaaga tageen samee ama uu kuugu soo noqon lahayd kale aad uga fiicnaan lahayd laakiin ha odhani maxaad u guursatay taa marna maskaxdeeda ha saari waa caqli xumada haweenka baabi'isa weeye waayahay gabadhu sidee bay u kasban kartaa saygeeda bay isleedahay taa waan kuu sheegay baan u malaynaya intaasoo xaaladood haddaad marto waad kasbanaysaa deganugeel udgoon macaan raaligelin qadarin xorriyadaad ninka siiso oo aadan ku mashquulin muxuu ahaaye xorriyadiisa ragga xorriyadda lagama qaado xagaad u socotay xagaad ka timi saacad maad timi goormaad baxday waxaa iska taagay wax ka qaalistan ma jirto ninka xorriyadda la siiyo marka waxaa weeye ragga xorriyad siiya waxa ay kaaga baahayen ilaahay ku farayn muxuu ku raaligeliyo dee qanci oo waxaa weeye ninka qanciyo waxaa maya gabdho waxa weeye gumaysi ma jiro ninkan ilaahay baaba ku siiyey adiga adaa boqorada horta waxaad aamintaan adiga ninka inaad adug baawar badan tahay guriga madaxweyne adaa ka ah ninkan hostel gacantaadu ku jira waxaad ku samayn doonto ma yaqaan marka barta raggiinu waxa weeye waaba isu keyn dhibi nin isu kaa dhibaad gacanta ku haysaa maxaabad ugu qaylinba adaaba iska leh haddaad tirahdo xataa xabixin oo intaad albaabka u madoobayso oo aad halkaa ku raali gelisa sariirtaa dusheeda xataa ninku ilaahu kaa amar qaato guriga ka bixi maayo soo moogid haddaadan adigu jaqjaqlay ama wareegta ahayn marka horta barta bartikoolka ragga lagula noolaado xorriyadna ragga siiya marka saasaan ilahay gabdhihiina yaryar saasaan ilahay dardaarankaasaan ina siinay mahadsan tahay waayahay xaawey waa mahadsan tahay dabcan waan rajaynayaa wax badan in lagaa faa'iido oo kolley waxyaabo badan oo qarsoonaana aad noo sheegtay qaybihii u dambeeyey waraysigeena ayaan soo gaadhnay xaawey waxaan jeclahay bal su-aasha u dambeysa inaan ku weydiiyo maxay tahay talada aad siinayso ama fariinta aad u dirayso qoysaska hadda dhisan si ay qoysaskaas u noqdaan kuwo nagaado oo dhisan oo waxaaba laga yaabaa fariintaaduba
inay hadda qoys khilaaf kasii dhex taagnaa marka ay fariintaada dhageystaan uu ku dego qoyskaasi oo ay gabdhihii wax badan kaa faa'iidaan fariintaan u diray horena waan ugu diray beejaj badan oo ay ku jiraan baa fariimahaygu ku jira gabdho badanina way ku degeen horta awalu waxaan leeyahay gabadha muslimadda ahayd horta marka hore awalu diinta barta markaad diinta barataan oo noloshiina ku salaysaan diinta waxaa weeye qoysaskiinu way degayaan raggiina ka dambeeya adeeca gabadh kastaana nafteeda naar ka ilaaliso waa maadaama la inagu yiri ninkii baa lagu naar mudanayaa cadaabba waxaad ku galaysaa ninkaaga khilaafkiisa de waxaan inii sheegaya horta cadaabta iska ilaaliya adduunyo wax yar heblaaya ninkay jeceshahay ficiis waxaas wax iska dhamaanaya gabadh kasta oo muslimada qoyska ay dhisayso ee muslimka waa inuu waaraa waa inay dul qaadataa waa inay ku xalisaa wanaag iyo raaligelin iyo macaan iyo maxaan kuu sheegaa wuxuu sheeg ninkeeda laakiin ayna jaqjaq iyo dagaal iyo xagaad ka timi xagaad u socotay su'aal qabriga ragga lagu odhanin waxaan leeyahay gabdhaha naftiina naarka badbaadsha wiilashana waxaan leeyahay gabdhaha loo dhaga nuglaado gabadhu hadday ku jeceshahay waxaa laga yaabaa inuu la yaabo ninku jacaylka gabadha oo gabdhaha waxaa jira mar jacaylku intuu ka tira bato ay waxa weeye runtii xaaladdu ay faraha ka baxdo oo uu ninku markaa u arko naagtan waalane aniga uun igu waalatay aniga daba socotay aniga muxuu ahaaye igu qataaran hadda sabab taa qadartay waxa weeye jacaylka kugu jaanjaamay ha ugu jawaabin inaad jeel ku rido waxa weeye gabadha raali geliya gabadha uun dhaga nuglaada ilaahay baaba quwadaadii tusoo ay ku jeclaysiiyay la qaybso jacaylka ayaan ragga leeyahay oo ha ku caayina inuu naagi jecelo su'aal badan oo daba taagan baa naftii ii keentay gabdhahana waxaan leeyahay ragga hal raali geliyo ha laga dambeeyo ninku wuxuu qaali ku yahay xorriyad qaali oo la siiyo ka daaya taleefankiisa baarista ka daaya su'aal qabriga ka daaya xagaad u socotay markuu soo galo waxaad tidhaahdaa in xabiibi macaane maxaan kuu qabtaa cagaha qabo madaxa qabo raali geli waa ku kaa nolosha halkaa ka jaanqaad khayr baan iniin dardaarmayaa iyo janno iyo qoysas waara guurka hala badiyo hala fudaydiyo ragayaan la xujaynin yaan lagu dayanin dadka muxuu ahaaye waxyaabaha qaldan ku socda guurka hala badiyo ragga ha loo fudaydiyo waxaa weeye noloshoo dhan waxay ku qurux badan tahay aqal dabaqyo la dhista maaha laba qof oo isjecel hadday doonaan hal joodar ha ku wada seexdaan marka waxaan leeyahay gabdhow guurka dabciya ragana raali geliya wiilashana ha kalifina beenta badan ee la sheegaya wiilasha idinkaa ku kalifo maxaad haysataa marka inuu ku wada leeyl calaawiya diyaarada iga soo degaya bahash adigoo og inuu shaad iyo surwaal qura gashan yahay marka ka daaya ragga dhibaatada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin waa idin salaamaya intii i maqlaysa iyo intii la joogta iyo intii i dhegaysan doontaba waxaan leeyahay hablow naar ha laga badbaado ciddii talo u baahanna yaa anigu waxaan leeyahay barnaamij la yidhaahdo talo iyo turxaan bixin ay la soo xidhiidhaan waa tahay daawadayaal gabi ahaanba intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa waraysigii aanu la yeelanaynay xaawo cali kaar oo aan ka wareysanaynay qoyska wanaagsan iyo sida loo dhisi karo xaawo waa mahadsan tahay waan kuu mahad celinayaa mar kale sida wanaagsan oo aad waqtigaaga noo siisay